faa'iido yaroo kooban oo tijaabo lagu ogaaday. faa'iidadaasoo aad u weyn taasoo tilmaamaysa ziyaadada risqiga. suuradda dukhaan loo yaqaan ilaahay idinkiisa haddaad akhrisatid xaamiin waa garanaynaa suuratu dukhaan. waxaa ku jirta faa'iido aad iyo aad u weyn oo dad badan ka qarsoon oo la tijaabiyo la ogaaday. ilaahay asagaa qaninimada keena faqri kadib, qofka asagaa ciseeya dulli kadib. farajka qofka ilaahay asagaa siiya ciriiriga kadib, ilaahay faraxa iyo rayraynta asagaa keena murugada kadib, walwalka iyo walbahaarkaba. waxaa rumaysataa oo yaqiinsataa markaad suuraddan akhrinaysid in ilaahay manfacada uu kugu siinayo. ilaahay dartiina u akhri adoo niyadda run ka sheegaya. qofka ilaahay u run sheega ilaahay wuu u run sheegaa. suuratu dukhaan dhammaanteed akhri adoo khushuucsan, isbihinbihinaya oo ilaahay gargaar weydiisanaya oo rabbi tuugaya. weydiiso waxaa rabtid akhrinta suuraddan kadib ilaahay jalla jalaaluhu wa caduma sultaanu. kadib markaad suuraddaa dhammaysid si niyo leh oo yaqiin aad u akhrisid ducadan ku dar, ilaahay waa kaa aqbalayaa. waxaad tidhahdaa allaahuma innii as'aluka bianna laka alxamdu laa ilaaha ilaa ant وحدك لا شريك لك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. إله أنا وحبانك سؤالنا إياه مهد لما أنتاد أدقى إسكاله الله حق لغو عابده وأنا أدقى هين مجره كليقى أيا عبادة إسكاله اللي قلد دبتنا سماوات كي دولالك أبوري خير كيسي وينيكي سبدن يهي اللي النولا مصالح دادتك يأدون كان أتاقنا ربي waxaan ku weydiisanayaa janno, naarna waa kaa magan gelaya. ducadaas ku soo khatim qiraa'ada suuratu dukhaan kadib ilaahayna waxa rabti weydiiso si niyo leh oo aan degdeg lahayn. dhammaantiin allaha idan barakeeyo, cimrigiinana ha idiin dheereeyo si baraka leh, hana idinka xafido dhibaato walba.